kulankan oo ka qabsoomay xarunta wasaaradda diinta iyo aqoonta Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa wasiirka wasaaradda diinta iyo aqoonta Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed waxa uu kala wareegay guddigii hore ee qaran ururinta oo ka dhamaaday xilkii ay qaranka u hayeen isla markaasina guud ahaanba wixii ay ugu talagaleen ay ka soo ururiyeen bulshada kala duwan ee reer Soomaaliland si rasmi ah ugu wareejiyay wasiirka diinta iyo aqoonta ugu horeeyna madashaasi waxa ka hadlay xubno ka mid guddiga ka soo kabashada abaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Muuse Biixi ayaa soo saaray markaa 3 bishan qoraal oranaya ama taqaana in guddigaasi maamul iyo hanti iyo qorsheyn iyo wax loo yaqaano daraaso waxay sameeyeen inay soo wareejiyaan aad baan ugu faraxsanahay qorshihii la sameeyay wuxuu ahaa lagu talagalay $10 milyan in la soo ururiyo si mashaariicda shanta maxsuul lagu sameeyo 7 milyan waxay ahayd gudaha in laga soo ururiyo 3 milyan waxay ahayd dibadda ayaa laga filayay habeenkii 18 ka May oo inagii sameynay xafladda aynu ku ururayno qaranka waxa lagu yaboohay oo yaboodaasi ahayd 3 milyan 104,212 waa lacagtii lagu yaboohay dadku ku yabooheen lacagta lagu yaboohay waxa ka soo harooday lacagta dollarka waxa ka soo harooday 842,851,851 shilin Soomaaliga waxa ka soo harooday 3 bilyan 424,315 wixii kharash ku baxay iyadoo tafaasiisha la sheegi doono marka dambe kharashadii baxay dollarka waxa 128,240 shilin Soomaaliga waxa kharash u baxay 472 milyan iyo 90,000 lacagta xaasilka imka aanu hayna gacanta ku hayna waxa weeye dollar ahaan 714,603 shilin Soomaaliga waxaanu haynaa 2 bilyan 952 milyan 224,000 waqtigiina la magacaabay waqti ku beegan bay imka u dhowdahay xaaladdu waa xaaladii qorshii bariga aanu dhignay 15% wax ku dhow baa soo xarooday intaanu gaadhnay intaasi kadibna wasiirka wasaaradda diinta iyo aqoonta Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed oo si rasmi ah uga wareegay jeega kala duwan oo guddigaasi ay ku soo ururiyeen qaadanadii kala duwan ee bulshada reer Soomaaliland ku yabaahoday ayaa waxa uga mahadnaqay guddigaasi waxaanu Ilaahay uga bariyay in uu ajar khayr qaba ka siiyo hawlaha si samafal ee bulshada u qabteen wuxuu madaxweynuhu codsaday in guddi ka soo kabasho abaaruhu ay runtii qorshayaal waxay hayeen iyo waxay dhaqaale hayeen ay ku soo wareejiyaan anoo ka wakiila xukuumaddan uu hogaaminayo mudane Muuse Biixi Cabdi tiina maanta waa hortiina iyo media hortiisa ku dhacday halkana insha Allah taala waxaan uga mahad celinayaa guddidii ka soo kabashada abaarta oo si baaxad leh dadaal badan muujisay runtii dadaal kala go'ol ahayn hadiya habeena shaqeynaysay taasoo runtii keentay inay intaasoo dhaqaalaha ay soo ururiyaan